wafdigani oo isugu jira wasiiro hore iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ayaa waxa horkacayay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka isagoona ahaa gudoomiyihii u dambeeyay ee baarlamaanka ku meel gaarka ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubnaha la socday ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka madaxda gobolka degmada ururada haweenka dhalinyarada iyadoona wafdiga loo galbiyay dhismo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo halkaas oo ay degeen ammaanka gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha isku markiiba la wareegay ciidanka midowga Afrika ee AMISOM isagoona lagu galbiyay gaadiidka qufulan ee AMISOM iyo kuwa dadweynaha ay leeyihiin horantii kulan soo dhaweyn oo ka dhacay dhismaha ay degan yihiin madaxda wafdiga maanta soo gaaray magaalada Baydhabo waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shiina Macalin Nuurow salaan gudub mudanayaal wali asin ka dhawaayeen miitro la furna la asin ka dhawaayeen Baydhabo wala siin tijeeye kooytan wali sheegan dadka buunbuuniya wala injarna been ani ataan sheegan oo wal Baydhabo shaqada tijeeye Baydhabo nabada ku taala xasilooni taala lan lanki deegaankan haandareero oo kooyo cid walba oo nabadijeel sida dadka ta kooy wali ka dhawaayeen sida isu ku sifayda runtii dadku wali soo dabqaade qofku wali zero ku dhagin side la kool dadana faana sheega markaas la aragay laakiin dadku ku fulaan wal ningan faana di sheegan ma banin kooyna brunta wali nin kooyay dadkii wadankan samata bixintiyo badbaadiyo wal badan haamara inin kooyna aaminsanna dadka tashwiishka wada wali leena tashwiishka gaabsay dimeelka la qootay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo imaatinkiisa maalmihii u dambeeyay laga hadalhayay gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo ayaa isna hadalka la wareegay waxa uu tilmaamay inuu taageerayo shirka ka furmay magaalada Baydhabo ee maamulka lagu sameeyo 6 gobol ee koonfurta Soomaaliya waxa uu ku baaqay in shirka ka socda magaalada Baydhabo iyo maamulka la dhisayba muhiim u yahay in dawladda marka hore raali ay ka noqoto iyadoo wadooyin baahna inuu nahelna maamul oo waayo isku dubrido caalamka ka wareeji karo dheenku taba koran inuu dhismo baahan marka wayba aaminsanaa in gobolada koonfureed dadka wada degaw digile marfay dadka la degaw inuu maamul suubsadaan si nabad iyo dawladnimo iyo sharaf iyo horumar iyo kala Soomaaliya federaal goosay marka dumar federaal la keeli meel kasta dawlad federaal la dhiso dawladda dhaxana madaasay la kirinaad federaal oo dawladda dhaxan kirinayn ma dhismo karo dawladda dhaxan federaalka kirinaad la fadal sidii iskirmaan la kirmaan la ku talado la fadal marka isku eedeeda ma hadsan runtii eedeeda sayma haddii aad doonayso guri haddaad doonayso guri yar haddaad doonayso guri weyn iyo meel baaxad weyn oo lagu noolaado jikado casriya iyo waliba beerta nasashada oo aad u ballaaran iyo guryaha iridda weyn laga gala kadibna ay guryuhu gudaha ku badan yihiin dhismahoodu ammaankooduna uu sugan yahay intaba waxaa kuula diyaaray sharikadaasi waxaa kaloo ay ku diyaarisay dadka doonaya hoteelada in loo dhisay iyo guryaha qaab aad u wanaagsan iyo naqshada iyo guryaha caalamiga ee ku yaala qaaradda Yurub oo kale ayadoo shirkadu ku ballan qaadayso riyadaada inay run ka dhigto waxa intaas dheer meel kasta shirkadu ay dhistaba biyuhuna ay toos yihiin looguna talagalay goobo ay biyuhu ka baxaan wasaqda oo aan haba yaraatee ku istaagaynin waxa shirkadaasi ay ka caawinaysaa in korontadu ay si toos tahay waxaan meesha ka maqnayn air conditionkii iyo waliba qalabkii qaadaya qiiqa iyo awoodda enerjiga iyo xagga korontada ka timaada cadceedda waliba leerarka korontada laga dhaliyo dhinaca motorada wixii faahfaahinana waxaad kala xiriirtaan